بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم halkii baynu kasii wadaynaa duruusteennii fahamka islaamka ama tawjiihada islaamiya waxaynu kusoo jiray qaybtii camaliga ahayd ama aynu nidhi waa hawl la qabanayo marka laba qaybood aynu soo marray qaybtii ku dhawaaqida shahaadateynka iyo salaadii waxaynu halay saddexdaa kale zakaa asawm alxaj marka zakada aan ku bilowno zakadu waxa weeyaan waa sadaqad waajib ah sadaqada qaybna waa tadawuc taa maalin walba aynu bixino midna mid waajiba oo xoolaha markay nisaab gaara gaadhaan level gaara gaadhaan ayaa ma lagu waajibinayaa marka wixii la bixinayo qofku waa inuu bartaa qofku maaliyadda ama xoolaha leh xoolo nool ha lahaado beera ha lahaado dahab ha lahaado iyo lacag iyo ganacsi kale ha ku jiro waa inuu yaqaanaa oo bartaa nooca xoolaha uu ka haysto waa inuu sakadooda bartaa oo cilmi u yeeshaa dad badan baa arkaysaa oo meelaha dee kabadho yar iska haysto oo dhowr kun oo dollar haysta aan weligood iska bixin marka sakada haddii 4 kun aad gaadho ama 5 kun iyadoo ku xidhan tahay marba qiimaha dahabka 85 gram weeye aan waxba lagu lahayn deeni waxba lagu lahayn dee sanadna hayso dee zaka lagu leeyahay haka mooganaanta yani ku dhuumanin marka zakadu waa barako xoolo barakeynaysa annamu way korin macnaheedu iyo daahirin marka zakada waa in la iska bixiyaa aan lagu yeelan zakada qof waliba qofkii aan saka bixine iska haystana qolyaha geela iyo waliba la yiraahdaa waa ku dhigayaan saka ma bixiyaan oo hadhowtu markuu geelu ka baxo deyntii sakada waa lagu leeyahay marka intaan adigu amaad ka tagin adigu dhiman geel la iska qaybsan ama geeli ka dhamaan waa in zaka lagu yeelan waa iska bixisaa aakhir iska bixin kara masoo xamaasad waay taasi waa taa تكلم وحويان عدة السنين الزكاة وحويان سديد سنفي وضضع إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرغاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سديد اسمه السنكرة يحسوا اسكرة هل كان ممكن كسيق من الزكاة دي صوم تيبا كحكتا صوم تربوح يعني اتكلم هناك وامام من يدك يعني فضائشي ديو لما سو كوبي كرو صومتو وعافيمات يدنا dadka wax la yiraahdaa shirka wixii sunay ku jira detoxification ayay ku samaysaa oo sanadkaas oo dhan wixii sun iyo qashin iyo waxaas oo dhan ayay ka safaynaysaa caafimaad iminka kuwa gaar ah oo taa islaam baa hayno ajir baka doonay baa sooma oo ilaa wallahi soontaas buu shirki ku hagaagaya oo iyaga isku waajibiya marka soontaasna waxa in la ilaaliyo la barto cilmigeeda oo cilmi loo yeesho waxyaabaha ku burayso cid ku waajibayso waqtiyadeeda waxa soo dhan iyadoo cilmi kaaga baahanta oo zakada waxa dad gaar ah oo dadka xoolaha haysto ku waajibaysa laakiin soomtu qof kastoo qaan gaar ah oo muslima oo miyir qaba tay way ku waajibaysaa صوت dadka qaarkood bay fidyo bixinayo ka dhacaysa marka waxa weeyaan qofka gowbay iyo aan awoodi karin xanuun qofka xanuunsanaya xanuunkiisu aan bogsiyada haynin kuwaas marka waxa weyn la dhageystaa cilmigeedo maxaa tahay muxaadaraadka la dhageystaa kutubteeda la dhageystaa cilmi buura loo yeeshaa way xajkii baa ku sii xigaa oo ugu dambeeya xajkina saas oo kale in cilmi loo yeesho weeyaan waxa weeyaan ijtimaaca guud ee islaamku isugu yimaado sanadkii hal mar weeye waxaan looga jeedaa in halka lagu kala qaato wixii macluumaada isdhexgalkii isbarashadii xikmado fara badan baa ku jira oo waxa weeye dambi dhaafkan marka laga yimaado xikmado kale badan baa ku jira islaamka halkaas ku wada arkaya halkaas isku update kareynaya oo sida jimcaha oo kale jimcaha maalinta jimcaha waxa loogu talagalay dadkii magaalada qaryada ku noolaa dadka halka inay
maxay ahaatay isugu yimaadaan wararka lagu kala qaato la isku maxay ahaatay update gareeyo wixii wiigaas soo jira toddobaadka wixii la iska nahiyayo wixii la isfarayo waxaas oo dhan salaadaha kale laftooda waa saas oo kalo salaadahan salaad walba marka jamca la imanayo jamca waxaa loo imanayaa in la isbaraarujiyo oo qofkii wixii dhacay iyo wixii khayr la doonayo in laga faa'iideysto iyo wixii xumaan la reebayay waxaas oo dhan waxa weeye waa meesha mar walba dadku dee waxay wararka kala qaadanaya masaajidadu marka nimanka yimiyada masaajidada tujiya dadka waa inay u sheegaan wixii dani ugu jirto mar walba la socodsiiyaan halkaas baynu markaas u daynaynaa insha allahu tacaala waynu kusoo gabagabaynaynaa sii sheergareeya duruustaas iyo channelkaas lacag laguma sameeyo channelska free ah markaa dadkii oo dhan sii wada gaarsiiya insha allahu tacaala addaalu cala alkhayri kafaacilihi nabigu sala allahu alay wasalam qofka khayr dadka tusaa waa qofkii sameeyey oo kale yani waxaa loo jeeda ajar inta isaga kaa sameeyey leeg baa isagana loo qoraya kiina waxba laga musqaamin maayo marka channelka waxaa ku jira duruus higaad ah oo deg deg ah oo markiiba qofku macallimiin badanna isticmaalaan dad bayna ka faa'iideen oo iskooda isugu bareenba marka book pdf ana waan idin haynaa bilaasha oo free ah waan idin soo diraynaa nambaradaas baa nagala soo xidhaysaan oo whatsapp ah marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaa inoo joogto waa idinkaa